Indhaha caalamku waxa ay si weyn u hayaan waxa ka socda dalka Mali. Siyaasadda Galbeedka Afrika waxa ay la circiraysaa faragelinta reer galbeedka, waxaana muuqata in markan dowladda Faransiisku ay heshay dalool cusub ay kaga dusi karto, sidoo kalena ay ku soo ceshan karto saameyntii ay ku lahayd dalalka dhaca Galbeedka Afrika kadib sanado badan oo laga hortaagnaa, sidoo kalena ay ku socdeen dagaallo kala duwan oo dhinaca siyaasadda ah. Waxaana hadda muuqata in dalalka reer galbeedka gaar ahaan dalka Faransiisku uu abaabulayo weeraro xooggan oo dhinaca diblomaasiyadda iyo ciidanka caadiga ah, kaas oo adeegsanaya kooxaha kala duwan ee jihaadoonka, sidoo kalena uu maalgelinayo si uu u qabsado, sidoo kalena awooddiisii siyaasadeed ee u soo ceshado dalalka dhaca Galbeedka Afrika ee la isku yiraahdo Saaxil. Saddexdan dal ee ku midoobay ururka AES ee la isku yiraahdo Saaxil ee kala ah Niger, Mali iyo Burkina Faso waxa ay markani wajahayaan xaalad siyaasadeed oo cusub, iyada oo dhinacyo kala duwan laga soo weerarayo. Sidoo kalena dalkii ugu horreeyay ee tijaabadan lagu sameeyay ayaa noqday dalka Mali, oo markani wajahaya xaalad siyaasadeed iyo xiisado cusub. Dagaalka ka dhacay dalka Mali waxa uu iftiimiyay umuuro qarsoona, waxaana si weyn u caddaatay in Ruushku marnaba uusan gelin saaxiib siyaasadeed, taas oo caddaynaysa sida uu uga dhaqaaqay maalintii ay xaaladdu adkeyd ciidanka Mali. Balse tani waxa ay ibafur u noqon doontaa isbeddelka cusub, iyadoo casharo lama ilaawaan ah siinaysa dalalka kale ee haray sida Niger iyo Burkina Faso. Haddaba sidee bay wax u socdaan? Muuqaalkan ayaan doonayaa inaynu ku faaqino umuurahaas ee soo dhawaada oo channelka subscribe kana mid noqo saaxiibada inagu xiran. Qalcaddii magaalada Kati waxa ay u muuqatay mid aan la jebin karin marnaba, laakiin daqiiqado gudahood waxa ay isu beddeshay qubuuro lagu aasay dad badan. General Sadio Kamar, oo ahaa ninkii dhisay xuduudda ciidanka Mali ee awoodda badan, ayaa lagu dhex dilay hoygiisa. Kani ma ahayn weerar kadis ah oo keli ah oo kaga yimiday kooxaha saxaraha ka dagaalama, waxa uu ahaa dil qorshaysan oo si weyn loo soo agaasimay. Waxaana markhaati ka nahay dagaalka ka dhacay dalka Mali in uu ahaa qorshe ay ka dambeeyeen dowladaha reer galbeedka, gaar ahaan dowladda Faransiiska. Dalka Mali dhinac waxaa ka taagan awoodda reer galbeedka oo doonaya inay soo ceshtaan gacan ku haynta kheyraadka gobolka Saaxil ee ay sida weyn uga faa'iidi jireen, balse sanadihii ugu dambeeyay ee khasaaro badani ka soo gaartay. Dhinaca kalena waxaa taagan Afrikada cusub oo diidan inay madaxa u hooriso amaba madaxa ay hoos u geyso dowladaha reer galbeedka. Bartamaha dhulgariirka siyaasadeed ee ka dhacay Galbeedka Afrika waxaa taagan Kabtan Ibrahim Traoré, oo isagu aan ahayn hogaamiye dal hogaamiye oo keliya, balse ah astaanta madax bannaanida qaaradda Afrika. Haddaba waxaynu isweydiinaynaa, waa kuma General Sadio Kamar? General Sadio Kamar ma ahayn askari ciidan oo keliya iyo generaal hogaamiye guutooyin awood badan, waxa uu ahaa maskaxdii ka dambeysay isbeddelka Mali. Waxa uu generaalku dhashay sanadkii 1979. Aragtidiisu waxa uu rumaysnaa in xalka Mali uusan ku jirin gacanta Paris iyo weliba Washington, balse waxa uu aaminsanaa in dalalka Saaxil ay muhiim tahay inay mar walba gacanta ku hayaan wiilasha u dhaartay. Xiriirka uu Ruushka la lahaa ayaa ahaa mid weyn, isaga oo tababar sare ku soo qaatay dalka Ruushka. Waxa uuna dhisay buundada u dhaxaysa Bamako iyo Moscow, taas oo ahaa xiriir diblomaasiyadeed oo si weyn uu Ruushku uga faa'iiday. Waxa uuna mar walba ka shaqaynayay wadajirka iyo iskaashiga labada dal, isaga oo jebiyay awooddii reer galbeedka ee sida weyn uga muuqatay dalalka gobolka Saaxil. Bishii Julaay sanadkii 2023, Mareykanka ayaa cunaqabatayn dhanka socdaalka ah saaray generaalka, isaga oo ku eedeeyay inuu dalkiisa keenay kooxda loo yaqaano Wagner, oo ahaa koox calooshood u shaqaystayaal ah islamarkaana ka soo dagaalamay dalal ay ka mid yihiin Ukraine. Laakiin beeraleyda dalka Mali iyo shacabkuba tani waxa ay u ahayd naruuro iyo xorriyad, maadaama ay ka feedantay dhibaatadii ay ku hayeen dalalka reer galbeedka, gaar ahaan dalka Faransiiska oo in badan dalkaasi maamulayay. Su'aasha taagan ayaa ah, maxay Washington sida lama filaanka ah uga qaaday cunaqabatayntii dhanka socdaalka ahayd ee saarneyd Sadio Kamar toddobaadyo yar ka hor inta aanu la dilin amaba uusan weerar ku dhicin? Qorshahan ayaa ahaa qorshe weyn oo si gaar ah loo soo abaabulay, iyada oo generaalka toddobaad ka hor laga qaaday cunaqabatayntii saarneyd
kadibna uu dhacay weerarkan sida weyn loogu ba'ay isla markaana generaalku galaaftay noloshiisa. dad badan waxay aaminsan yihiin in tani ay ahayd xeelad lagu dejinayay feejignaantiisa si looga faa'iideysto isla markaana uu isu dhigto. weerarkii Keyti bishii Abriil 25keedii dhacay waxa uu ahaa mid ilaa iyo hadda dadka siyaasadda falanqeeya ay la amankaageen isla markaana ay la yaaban yihiin sida weyn ee loo qorsheeyay, iyadoo 5 magaalo oo isku mid ah hal mar weerar lagu qaaday, sidoo kalena la dilay ninkii ugu sarreeyay ciidamada difaaca Mali. balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah sidee gaari qarax siday oo uga gudbay bara kontarool oo aad u fara badan ilaa uu ka gaaro guriga wasiirka difaaca dalka. tani ma ahan fashil dhanka amniga ah oo kaliya ee waxa ay muujinaysaa in ay jireen dad gudaha ah oo fududeeyay arrintan isla markaana la shaqeynayay ciidamada Faransiiska. weerarku kuma ekayn magaalada Keyti oo kaliya ee ilaa iyo 6 magaalo oo kale ayaa si isku mar ah loo weeraray isla markaana ay ka dhaceen dhibaatooyin badan. ciidanka weerarka soo qaaday ku dhawaad 12,000 oo dagaalyahan oo xiran dareyska rasmiga ah ee ciidanka Mali ayaa weerarka qayb ka qaatay. tanina ujeedadeedu waxa ay ahayd in la abuuro kalsooni darro dhex timaada ciidanka oo ay kala garan waayaan cadowga iyo weliba sokeeyaha. arrinta kale ee fajaca leh ayaa ahayd magaalada Kidal oo ahayd astaanta guusha Mali ayaa gacanta u gashay kooxaha gooni u goosadka kadib markii ciidamada Ruushka ee loo yaqaano Africa Corps ay isaga baxeen iyaga oo markaasi ka badbaadsaday agabkoodii ciidan iyo weliba saldhigii halkaasi ay ku lahaayeen. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaana farta si toos ah ugu fiiqday sirdoonka reer galbeedka iyada oo sheegtay in ay tababareen ciidanka saxaraha si ay u dumiyaan isbahaysiga dalalka saaxil. haddaba maxaa la gudboon kabtan Ibrahim Traore maxayse tahay tilaabada xigto ee la fili karo inuu qaadi karo? dadka falanqeeya siyaasaddu waxa ay leeyihiin dilka Sadio Kamar waxa uu ahaa fariin dhiig leh oo loo diray kabtan Ibrahim Traore, waxa ayna rabaan inay u sheegaan haddii aynu ku dhex dili karno ninkii ugu awoodda badnaa dalka Mali, adiguna meel nooma jirtid. waa muhiim ayaa la yiri inuu qaado tilaabooyin dheeraad ah si loo hubiyo badqabkiisa. inkastoo Ibrahim Traore uu ka badbaaday isku dayo dhowr ah oo la doonayay in lagu qaarijiyo isla markaana looga xayuubiyo xilka uu ka hayo dalka Burkina Faso, balse Ibrahim Traore oo ah nin aad u mayal adag ayaa la yiri mar hore waxa uu ka doortay sharafta qarankiisa tan naftiisa. isbahaysiga dalalka saaxil ee la isku yiraahdo Mali, Burkina Faso iyo weliba dalka Niger hadda waxa ay wajahayaan tijaabadii ugu adkeyd. haddii ay midoobaan waxa ay qori doonaan taariikh cusub oo lama ilaawaan ah isla markaana baal dahaba ka geli doonta dalalka Afrika. balse haddii arrintaasi ay dhici weyso waxaa la arki doonaa ayaa la yiri isbeddelka cusub ee siyaasadda reer galbeedku ay la doonayaan qaaradda Afrika. fadlan daawade haddii halkan la soo gaartay channelka subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran. waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaallo xiiso badan.